waxaa maanta magaalada Frankfurt ee dalkani Jarmalka lagu qabtay kulan ballaaran oo lagaga hadlayay arrimaha qaxoontinimo. Kulankaasi oo soo qaban qaabiyay qareen kamid ah qareenada Soomaalidu ay aadka ugu badan yihiin oo lagu magacaabo Dominic Bender, waxaana lagaga hadlayay shuruucda qaxoontinimo ee dalkani laga bixiyo oo u qaybsama laba qaybood oo kala ah sharci 3 sano oo Soomaalidu ay u taqaano blue passport iyo waliba ka halka sano ee isna lagu magacaabo green passport. waxaana jirtay imka mudooyinkii ugu dambeeyay in sharciga 3 sano aan la siinin Soomaalida, taasi oo caqabad ku noqotay. waxaana haddaba Dominic Bender uu casuumay dhalinyaro fara badan oo Soomaali ah oo kala degan gobollo kala gedisan oo dalkan Jarmalka si afkaarta ay isu weydaarsadaan sidii looga hortagi lahaa taasi, isla markaana dib loogu heli lahaa in Soomaalidu ay hantido sharcigaasi. waxaana telefishinka caalamiga ah Cable TV uu Dominic Bender weydiiyay kulankani waxa uu daaranaa. Yeah, I'm glad that so many Somalian clients came today to this meeting, and we talked about their possible future here in Germany and the actual situation in their asylum. Sie können das 2:0 also noch schießen, und deswegen habe ich Sie eingeladen. Ich möchte wirklich, dass Sie es schießen, und zwar zusammen mit mir. haddaba marka laga hadlayo farqiga u dhaxeeya sharciyadan labada ah ee laga bixiyo dalkani Jarmalka ayaa jira farqi isagu aad u weyn oo u dhaxeeya iyo waliba xuquuqda ay kala leeyihiin labada qof ee kala qaata sharciyadaasi. waxaana sida Dominic Bender uu xaqiijiyay qofka qaata blue passport-tiga uu deganaanshaha dalkani Jarmalka ku heli karaa muddo ku dhow 3 sannadood, halka ka sanadkaana uu deganaanshihiisu noqonayo muddo gaadhaysa 7 sannadood. waa markii ugu horeysay qareen Soomaalida u dooda uu qabto sanadkan shir noocaasi oo kala ah oo uu ugu xog waramayo dadka Soomaaliyeed ee iyagu halkani ku jooga magangalyo doonka. Mustafa Xaaji Aadan Haarun, telefishinka caalamiga ah Cable TV, Jarmalka.